munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen ururka dugsiyada sare ee magaalada Boorama ee magaciisa la yiraahdo Asad Awdal Student Association Development ayaa xalay xaflad lagu soo bandhigay hal abuurka afka hooyo ee dalka Somaliland ayaa lagu qabtay hoolka jaamacadda Amuud ee magaalada Boorama. munaasabadan oo ay soo qabanqaabiyeen ururkaasi ayaa waxa ka qayb qaadanayay 6 dugsi sare ee magaalada Boorama oo dugsi kasta ay ka socdeen hal wiil iyo hal gabadh oo iyagu ku tartamayay hal abuurka suugaanta afka hooyo. waxaana munaasabadaasi ka qayb galay gudoomiyaha waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal Professor Daahir Maxamuud Xadee, isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamacade, abwaano maamulayaasha 6 dugsi sare ee magaalada Boorama. waxaana halkaasi ay ku soo bandhigeen dhalinyaradu ardaydaasi ku tartamayay hal abuurka suugaanta gabayo iyo buraanburo kala duwan. waxaana munaasabadaasi ka hadlay Saadam Cabdinaasir oo isagu ka mid ahaa asaasayaashii ururka Asad ee ardayda dugsiyada sare ee magaalada Boorama ay ku bahoobeen. maanta nigo sabta ururkan ardaydu maalmaha wuxuu ka soo shaqeyn jiray wacyigelin ka sameyn jiray 6 dugsi degmada Boorama 6 dugsi ayaa markii hore jiray waqtiga la asaasay ururkan. iminka laakiin soo xaq soo biiray iskoolkaana waxaan arkaa inuu ururku daaweeyay macni waqtiga ururka la asaasay iyo waqtiga iskoolka la asaasay waqtiga ururka la asaasay ka daaweyn ayatiin weeyaan iskoolkaasna aad baan dhamaantiin ugu mahadnaqaya. waxaan idin rajaynayaa dhamaantiin inaad wada guuleysan doontaan kuwa tartamaya kuwa dhageysanaya barnaamijkana kaliya noqon maayo kuwa dambana uu noqonaya. waxaa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay abwaano kala duwan iyo mas'uuliyiin heer qaran iyo maamulayaasha dugsiyada sare ee magaalada Boorama. waana markii ugu horeysay ee barnaamij noocan ah ay soo bandhigaan ururka Asad ee ay ku bahoobeen ardayda dugsiyada sare ee magaalada Boorama. waa Caafi TV-ga qaranka Somaliland Boorama.